wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal ayaa maanta ugu deeqday lacag gaadhaysa $45,000 ay ku wareejisay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal waxaana lacagtani laga ururiyay ardayda wax ka barata dugsiyada hoose dhexe iyo sare lacagtani oo loogu talagalay jidka Ceerigaabo in lagaga qayb qaato dhiskiisa ayaa waxa bariyihii ugu dambeeyay soo ifbaxaysay hoos u dhac weyn oo ku yimid wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal nidaamkeeda shaqo taasoo ay ka marakacaysa natiijadii imtixaanaadka gobolada dalka uu ka galay gobolka Awdal kaasoo ahaa gobolkii ugu hooseeyay imtixaanaadka shahaadiga ah ee sanadkii hore taasoo ay ka marakacaysa tartankii natiijadii imtixaanaadka ee gobolada dalka oo dhan uu ka galay gobolka Awdal oo ugu hooseeyay waxbarashada dalka waxaana gobolka Awdal tirada eeda uu keenay aad ugu hooseysay sanadkii hore waxaana intaasi dheer in ay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal ay maamulkeeda ayna ka warhaynin wasaaradda waxbarashada heerka uu taagan yahay waxbarashadaasi waxaana bariyihii ugu dambeysay soo badanaysay ardayda dugsiyada hoose oo iyagu u boodayay dugsiyada sare iyagoo aan soo dhameysanin dugsigii dhexe wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal ayaa iyadu xakameyn karaynin waraaqadaha foojariga iyo isku bedelka ardaydu ay qaadanayaan daba lacagahan ardayda laga ururinay loogu talagalay wardada Ceerigaabo in lagaga qayb qaato ayaa waxay isugu jireen in aan awoodaynin lacagtaasi iyo in awoodaysa hadaba kuwii aan lacagtan awoodaynin ayaa iyagu waxa ay ku seegeen waxbarashadoodii iyadoo aan loo aaba yeelin inuu ardaygani awoodiyo iyo in kale sidoo kale waxa jirta iyaduna tayada maamul ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka iyadu aad ay u liidato wasaaradda waxbarashada marka la doonayo in xog laga ogaado maamulku ay diidaan taasoo ayna doonaynin in xogta wasaaradda waxbarashada la ogaado oo aad ay u liidato waxbarashada gobolka ayaa ahayd sanadii dhaweetii ugu liidatay tan iyo markii ay hana qaaday nidaamka imtixaanaadka dalku guuldarro weyn ay kala soo hoydeen wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal Yasin Muuse Raya TV magaalada Boorama